marka loo fiiriyo muxaadarada waxaad sheegtay muxaadaradaada dhexdeeda in malaa'igtu aysan lahayn xorriyad iyo doonis laakiinse meel kale oo ka mid ah suuratul baqara ayaa lagu sheegay in ibliis uusan u sujuudin nebi aadam markii ilaahay amray arrintaasi miyaysan ahayn doonis xor ah maasha allah walaalka wax badan ayuu bartay waxa uu akhriyay qur-aanka maasha allah dhab ahaantii wuxuu akhriyay qur-aanka waana ku waafaqsanahay inay aayadda ku jirto suuratul baqara suuradda 2 aayadda 34 xus markaan ku niri malaa'igay u sujuuda aadam markaasay sujuudeen ibliis mooye wuu diiday wuuna iskibriyay arrintaasi laguma sheegin oo kaliya suuratul baqara laakiinse waxa lagu sheegay wax ka badan 7 mar qur-aanka suuratul a'raaf suuradda 7 aayadda 11 suuratul hijri suuradda 15 aayadda 30 suuratul kahfi suuradda 18 aayadda 50 isku mid waxaan amarnay malaa'igta dhamaantood inay u sujuudaan aadam waa ay sujuudeen dhamaantood ibliis mooye idan hadda ibliis mucaarad ayuu noqday halkan ayaana ka ogaanaynaa ibliis haddaad akhrido tarjumaada English ahaan waxaan u fahmaynaa ibliis inuu yahay malag laakiin haddaad akhriso suuratul kahfi suuradda 18 aayadda 50 taasoo dhahaysa xasuuso markaan ku niri malaa'igta u sujuuda aadam oo ay sujuudeen ibliis mooye wuxuu ka mid yahay jinniga wuxuuna ka faasiqoobay yacni ka baxay amarka eebe ma fahantay sidaa darteed ibliis jinka ayuu ka mid ahaa waxaad dhihi doontaa walaal daakir allah malaa'igta wuxuu ku yiri dhowr mar u sujuuda aadam waa inuu u sujuudeen ibliis mooye idan asagu waa malag waxaana kaloo jirta aayad quraanka ku jirta taasoo sheegaysa inuu jinka ka mid yahay taasi waa isburin maxaa yeelay tarjumaada ayaan soo qaadanaynaa luqadda carabiga waxaa jira qaacido la dhaho qaacidatu taqliib macnaheeduna waxa weeye haddii dadka la hadlayo ay yihiin aqlabiyada iyo kuwa ugu badan markaasi looma baahna in kooxda yar laga hadlo tusaale ahaan haddii halkan ay joogaan 99 dhakhtar iyo hal injineer anina aan iraado dhammaan istaaga dhaqaatiirta xitaa injineerka waa uu istaagi doonaa maxaa yeelay qaacidada taqliibka iyo aqlabiyada ee luqadda carabiga ahi waxay la macno tahay marka la hadlayo dadka aqlabiyada ugu badan loomana baahna dadka yar la hadlo uma baahni inaan dhaho ha istaago dhakhtar kasta iyo halka injineer laakiin si luqadda ingiriiska hadii aad dhahdo ha istaagaan dhammaan dhaqaatiirta oo kaliya ayaa istaagi doona injineerka mooyee sidaa darteed lama helayo meel kamid ah quraanka oo lagu sheegay ibliis inuu malaa'ig kamid aha waa annaga sababta tarjumida weeye iyo ogaanshayaarada naga haysto luqadda carabiga markaasan ka soo qaadaynaa inuu ahaa malag sidaasna way sameeyaan dad badan oo muslimiinta kamid ah laakiin quraanka waxa lagu cadeeyay suuratul kahfi suuradda 18 aayadda 50 in ibliis kamid ahaa jinkuna waa basharka oo kale waxay leeyihiin xorriyad doorasho ay wax kala doortaan sidaa darteed malaa'igta waxa kamid ahaa mid jinka kamid ah oo joogay waana ibliis wuxuuna ahaa mid aad u cabsi badan laakiin waa uu iskibriyay wuxuuna yiri maxaa uu sujuudaysaa aadam oo laga abuuray dhoobo anigana laga abuuray naar waa iskibrin arintaasna waxay ka dhigtay inuu ilaahay ku caasiyo ka soo horjeesto jinka ayuuna kamid ahaa jinka iyo insiguna waxay leeyihiin xorriyad kala doorasho waxaana u suurtagal inay ilaahay caasiyaan isla markaaba waa kan ibliis ilaahay caasiyay arintaasna waa sababtii soo saaridiisii wuxuuna noqday shaydaanka ugu weyn haddana wuxuu isku dayayaa inuu dadka ka fogeeyo wadada alle wuxuuna u diidayaa xuska Allah subhanahu wa ta'ala waxaan rajaynayaa inaan su'aashaada ka jawaabay